بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah guri jiingad ah oo ah guriga hadda u jeedaan meel aad iyo aad u fiicanna ku yaala waxa uu ku yaalaa meel isgoys ah oo laba jid cadde oo waaweyn ay isaga yimaadaan waa xaafad aad u dhisan xaafadihii hore ee magaalada ka mid ah walaalayaal soo dhawaada guriga jiingadda ah waxa uu u dhisan yahay laba qayb waxaana joognaa waa gurigan jiingadda ah ee aad hadda aragtaan waxaana joognaa xaafadda Wajeer walaalayaal waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha Allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal waxaa iib ah gurigan jiingadda ah ee aad aragtaan laba albaab ayuu leeyahay laba qayb ayuu u dhisan yahay geedkan weyn ayaa ka hor baxo dhinacaana waddo ayuu ku leeyahay dhinacaana waddo kale walaalayaal xogta gurigan haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo oo aan si faahfaahsan idinkugu sheego walaalayaal gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdishona wuxuu uga sii yaalaa degmada Kaaraan walaalayaal degmada Kaaraanna wuxuu uga sii yaalaa xaafadda weyn ee loo yaqaano Wajeer xaafadda Wajeer waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee degmada Kaaraan waa xaafad qadiim ah oo ah xaafad ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada Muqdisho waa xaafad aad loo jecel yahay dhismo ahaan iyo deegaan ahaan aad u fiican horumar badan sameynaysa meel istiraatiiji ah ku taalla walaalayaal gurigan xaafadda Wajeer wuxuu uga sii yaalaa ama uu u dhow yahay waddada interlog ah ee ka timaada garoonka kubadda cagta ee Qoob Dooro weli waxa uu ku yaalaa agagaarka masaajidka Xaaji Laameer waddada interlog ah waxa uu ka yahay booska saddexaad walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga cabirka uu ku fadhiyo gurigan jiingadda ah ee iibka ah walaalayaal gurigani waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 12 mitir lagu dhuftay 12 mitir ama doodisho bardoodisho hadba sidaa u taqaanid ballac ahaan iyo dhirir ahaan walaalayaal dhulkani waxa uu yahay min 12 mitir waa cabir macquul ah oo ku habboon in hal guri laga dhiso gurigaas haddii la doono hal kala gooyo oo qayb iyo qayb ha loo dhiso laakiin hal guri ama hal fillo ayuu aad ugu habboon yahay sida hadda ka muuqatane hal guri ayaa ka dhisan laakiin laba qayb ah qaybtina ay tahay walaalayaal ilaa 3 qol cabirka doodisha ah xaafadan iyo guud ahaan degmada Kaaraan ayaa aad looga helaa fillo qurux badan ayaa ka soo baxayso ama guri dabaq ah oo waasac ah oo haddaad doonto kor iyo hoos aad ka dhigi kartid maraan dheereenna isla xaafadan ayaa guri noocaas ah oo dabaq ah ka soo gudbinay waa xaafadda Wajeer marka walaalayaal soo dhawaada gurigan waa beec waa la gadayaa waa doodisho bardoodisho ama 12 mitir lagu dhufto 12 mitir xaafadda uu ku yaalana waa xaafadda Wajeer degmada Kaaraan magaalada Muqdisho
walaalayaal haddii aan ka hadlo lacagta lagu rabo gurigan iibka ah, walaalayaal gurigani waxaa lagu rabaa 70,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah oo macal dalaal ah iyo heshiis beec waxaa la yiraahdaa meesha ka bilowda kuma dhamaado. walaalayaal waxaa ka furan gorgoro qiimo dhimis ayaa leedin sameynayaa haddii aad daneynaysaan insha Allah tacaala. walaalayaal lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira. haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusino haddii aad ku qanacdaan guriga xaafad ahaan meesha ku yaallo oo dhinacyo badan idiin qanciyo. qiimaha waa laydinka faragelinayaa ilaa xad wixii macquul ah waa laydinka dhimaa insha Allah tacaala. 70,000 oo heshiis iyo gorgoro ay ka furan tahay ayaa lagu rabaa. walaalayaal soo dhawaada ka faa'iideysta. waa guri dhisan xaafad fiican ku yaalla jidad fiican leh laba jidla ah. runtii waa qiimo macquul ah. waa fursad aad ka faa'iideysan karto siyaabo badan leh. gurigan waad ugu nacfin kartaa. walaalayaal haddii aan ka gudbo xagga qiimaha oo aan u gudbo xaggaas iyo jidadka uu leeyahay. walaalayaal sida idiin sheegaba muuqaalkan aad ka aragtaan gurigani waa laba jidle. waxaa hormara laba wado oo labada dhinac ka kala mara. wuxuu ku yaalaa meel isgoys ah oo 4 wado ay isaga timaado. sidoo kale walaalayaal wadada interlock ah oo wado weyn ah laami camal ah waxa uu ka yahay booska saddexaad. waxaa ka xigo 2 boos oo kali ah. haddii aan ka hadlo jidadka laamiyada ahna waxaa u dhow laamiga qoob dooro ee ka yimaada jiirada ee mirnaayada aada. sidoo kale waxaa asna u dhow laamiga kale ee ka baxa isgoyska jiirada ee aada dhankaas iyo suuqa. marka waa meel istiraatiiji ah. 2 laami oo waaweyn ayuu isku haystaa. sidoo kale laami kale saddexaad ayaa jira oo ah kan mirnaayada ka baxa. marka walaalayaal xagga laamiyada iyo wadooyinka waa heer saro. haddii aan ka hadlo xagga jihada ama meelaha ay ama jihooyinka ay wadooyinka ka maraan, walaalayaal waddo waxay ka martaa dhanka galbeed, waddo kalena waxay ka martaa dhanka waqooyi. sidaas ayuu wuxuu ku yahay galbeed ujeed iyo waqooyi ujeed. walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga dukumiintiga sharciga uu leeyahay gurigan iibka ah, walaalayaal gurigan waxa uu leeyahay sharci saxan oo dhameystiran kaasoo ah dukumiinti Maxamed Siyaad Barre ah. waxa uu leeyahay rasiid iyo samarloog original ah. walaalayaal sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhameystiran yihiin. haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate, walaalayaal waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno nootaayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha dukumiintiga insha Allah tacaala. walaalayaal dhul ama guri waxaa laga gataa dukumiinti. marka gurigani xagga dukumiintiga waa heer sare waa uu saxan yahay. haddii aan nahay shirkadda Dallas waxaan mar walba u taagannahay inaan idiin soo gudbino dhulalka iyo guryaha ay dukumiintiyadooda ay saxan yihiin. astaanteena waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha. walaalayaal haddii aan si kooban uga hadlo waxyaabaha idinka anfici karo gurigan iibka ah, walaalayaal gurigani kow wuxuu idinka anfici karaa deegaan ahaan inaad degtaan. waa ujeedaan meesha uu ku yaallo waa xaafad camiran aada loo degan yahay. xaafad la wada yaqaano dhan walba u fiican. aad ka heli karta dhammaan adeegyada asaasiga ah ee aad u baahan tahay. marka xagga deegaanka in qoys ay degaan waa guri aad ugu fiican. walaalayaal midda labaad waa dhul mustaqbal leh. waa xaafad kobac badan sameynayso xaafadda uu ku yaallo. qiimahana waa macquul. laamiga uma dheera. sidoo kale interlogga saddexaad ayuu ka yahay. sidaas awgeed waa dhul ku fiican xagga maalgashiga ama guri ahaanbo oo mustaqbalka dhow ay suuragal tahay in lacag fara badan ay kugu kororto aad wax ka faa'iido. weliba lacagta hadda laga bilaabay waxbaa laga dhimaya insha Allah tacaala. marka walaalayaal fursadaas maalgashina waa ay ka furan tahay. midda saddexaad uu walaalayaal idinka anfici karo gurigan iibka ah waa inaad kiraysataa. haddaba kira ayaa loo degan yahay oo bil walba ee lacag kaa soo gasho. idan waa fursad kale oo aad lacagtaada dakhli ugu sameyn karto inta akoon kugu jir lahayd. waa maalgashi. gurigana waxbaa kugu kordhayo ama dhulka lacagtiisa
sidoo kale bil kasto waa meel ay wax kaa soo gelayaan oo aad dakhli aad ku tashan karta ka heli karta xaafadana kiradeeda ay fiican tahay dhowr boqol oo dollar ayaa bishii kaa soo geli karta insha Allahu tacaala haddaba dadka iskale ay ka soo gashaa marka soo dhawaada walaalayaal saddexdaas qaab uga faa'iideysta insha Allahu tacaala walaalayaal haddii aad xaafadan dhul ama guri ku leedihiin beec idin yahay nala soo xiriira sidaan oo kale ayaa idinku beec geenaynaa insha Allahu tacaala haddii aad dhul ama guri uga baahan tihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waan idin helaynaa insha Allahu tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala waa mahadsantihiin mar kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh